بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إخوتي في العقيدة، waxaan jeclay inaan kelimaadka idhaahdo mawduuca walaalkay sheegay aan u bixiyey aalaamun wa aamaal. aalaamta ama waxyaabaha dhibaatooyinka maanta dadka muslimiinta haysta iyo rajada la qabo, waxa la rajaynayo. islaamku wuxuu soo taxnaa haatan marka laga soo bilaabo cahdigii nabiga calayhi salaatu wasalaam wakti aada u badan, 1400 iyo dheeraad sano ayuu soo jiray. duruufaad kala gedisanna wuu la soo kulmay, laakiin waxaynu odhan karnaa casriguu ugu liisay ama qarniga ugu madow taariikhda islaamiga waa qarniga kan aynu noollay. marka taariikhda islaamiga oo dhan dhammaanteed la daraaseeyo, qarniga ugu madow ee muslimiinta ay noolaayeen waa kan aynu maanta joogno. sababtuna waxay tahay muslimiinta may soo marin cahdi aanay jirin khilaafo islaamiya. waa jirtay marar khilaafada islaamiga ay daciif ahayd oo leeyahay, waa jirtay marar ay xoog badnay, laakiin waxaad moodaa qarniga kan inay gaadhay wakti aanay jirin khilaafo islaamiya. taasi waxay sababsadeen odhan karnaa inay caalamka ka muuqdaan dadkii muslimiinta ahaa oo aada moodo agoon ama sarrakay, meel kasta iyaydu ay ku booqtay. caalamka haddaad u fiirsato maanta, meel kastoo laga ooyayaba muslim baa degan, dhibaataduna aada bay ugu tiro badanta. laakiin ummadaha taariikhdooda marka la darso, maaha wax mar qura dhaca. uma taagnayd maalin keliya ma wada dunto, ummadaan taagnayna maalin qura ma wada dhisanto. waxaan leenahay dibu socodkan ama dibu dhacan dadka muslimiintaa maanta haysta muddo ayuu ku socday, oo islaamkoodii kolba in hilmaamayeen amase ka tegayay. ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku tilmaamaya wain tasbiruu watattaquu laa yadurukum kayduhum shaya. gaalada baa ilaahay leeyay subxaana watacaala, haddaad sabirtaan oo alla ka cabsataan, yacni haddaad raacdaan ariiqa alla subxaana watacaala idiin soo dejiye waxba idin yeeli kari maayaan baa ilahay. laakiin haddaad ka weecataan, waxaa weydeen markaasi xijaabkii amase wixii idinka mancinayey dhibaatooyinka. waxaa markaasi bilaabmaya inxitaafkiina amase burburkiina. waxaan jeclay inaan taarikhda in yar dib ugu noqdo, waayo taarikhdu waa lilcibra, waa dariska umamku ay wax ku qaataan. inaan dib ugu yaro noqdo taariikhda muslimiinta ee qarniga kanoo keliya, qarnigan aynu joogno oo qura. sidaa taarikhda ku wada haysaan waxa dhacay qarnigan qarnigii ka horeeyey dunida reer galbeedka oo christianity inay isugu tagtay inay qaybsato caalamka saddexaad, waxay maanta u bixiyeen oo muslimiin markaasi ahaa. waxaa bilaabmay cahdigii isticmaarka markaa, oo lagu talagalay in la gumaysto dadka muslimiinta ah. cahdigaa isticmaarka waxaa la socday in loo tashaday in la burburiyo khilaafadii islaamka ugu dambeysay. dowladdii ugu dambeysay ee khilaafo islaamiga kasii taliso waxay ka jiri jirtay wadanka maanta turkiya la yidhaahdo, addawla alcuthmaaniya. laakiin waxay ku baahsanayd caalamulislaami intiisa kaloo dhan, masr, suudaan, shaam, waxaan oo dhan iyadaa ka tirin jirtay. isticmaarkii wuxuu wadaba dowladdaasi waa la tirtiray. waxaan jeclay markaasi inaan turkiya taariikhdeeda in yar idinka tilmaamo. sababta waxay tahay waa markaskii ugu dambeeyey ee markaasi uu ka taliyo talis islaamiya.
waxaad ku qiyaas qaadan kartaa haddii markaskii uu caynkaa u ekaado meelaha kale wixii ka dhacay ama wixii loogu tashaday ayaa tusaale uga qaadan kartaa. reer galbeed mu'aamaraad bay muddo wadeen ah inay inqilaabaan dowladda islaamiga meeshaas ka jirta. ficlanna inqilaab bay ku dhigeen. inqilaabkaasi uu hogaaminayo nima iyagu soo tababareen oo loo bixiyey magac la ydhaha Mustafa Kamal Ataturk. inqilaabkani wuxuu dhacay kadib markii uu heshiis la galay reer galbeed isagoo diray ninkii la odhan jiray Cismat Anunu. heshiiskaasi waa mucaahadaad macruufa, waa heshiiska loo yaqaano mucaahadatu Lausanne. Lausanne waa Lausiana baa filaya magaalada Switzerland ka tirsan. mucaahadada waxaa wadagelayay qoladan waxay inqilaabaysa askartee turkida ah iyo wasiiru khaarijiyihii ingiriiska markaasi Kazun lo odhan jiray. waxay socotay November 1922 ilaa January 1923. hore ayaa marka horeba loo eriyey khilaafadii islaamiga ahayd oo Sultan Abdulhamid 1909 Abriil ayaa la inqilaabay lagana saaray wadanka. laakiin laguma dhawaaqin in khilaafadii duntay nin kalun bay saareen oo magacu yaala. mucaahadadasan waxaa lagula galay 4 ballan. 4taa hadduu fuliyo in inqilaabkiisu uu soconayo, in dowladdaasi markaa waxa dhibaato dhaqaale haysto o dhan reer galbeed ay xallili doonaan. 4 shardi ee laga qaaday ama 4 ballan baa laga qaaday. mucaahadadu 4 rukun ay ka koobnayd waa kuwa kan. waxaa la yidhi 1 inaad khilaafo islaamiya baabi'iso, inaanan dib u maqal kitaab iyo sunna wax lagu xukuma. waxaad doontay kala qaado markaa, laakiin inay baaba'do kitaab iyo sunna inay wax xukumaan. inuu ka hortago ama se uu taxqiiq ku sameeyo, inuu dabargooyo wax allaaliyo wixii muxaawala ama isku day ee lagu sameeyo in lagu soo celiyo khilaafadii islaamiga ahaa. inuu intaa kasii fogaado uu isku dayo shacaa'irta islaamiga, salaada, soonka, xajka, waxaas inuu tirtiro. inuu qaato qaanuunka reer galbeed, hadday tahay nidaam dastuuriya, hadday tahay nidaam qaanuuniyaba, in lagu dhaqmo wadankaasi qaanuunka reer galbeed in la qaato. 4taa shardi markaad qaadato bay yidhaahdeen baanu ogol lahay inaanu taageero dhammaystira ku siino. wuxuu qaatay 4tii shardi. March 3 1924 ayaa markaasi inqilaab lagu sameeyey dowladdii islaamiga ahayd. waxaana la cadeeyey fikradda maanta loo yaqaano jamhuuriyadda Turkiya. fikradda jamhuuriga maalintaas baa la bilaabay, waa 70 sano ka hor. muxuu sameeyey markaa? wuxuu isku dayey markii ugu horeysayba maxaakimtii sharciga ahayd iyo awqaaftii islaamiga ahayd buu baabi'iyey. 1925 markay maraysay uu qaanuun soo saaray mamnuucaya zayiga islaamiga ah dhammaantii. gabadhu inay xijaabato, ninku inuu koofiyad iyo cumaamad iyo waxaasi qaato, waxaasi oo dhan mamnuucaya. dadkao dhan waxaa waajib lagaga dhigay inay qaataan zayiga reer galbeedka. qabcada, koofiyaddan yare cowboyga ama noocaasi in la xidho oo tan yare islaamiga ee la qaadan karaa ay mamnuuctay. wuxuu soo saaray qaanuun sheegaya markaasi in la joojiyo assalaamu calaykum dadku inay isku salaamaan. alinxinaa baa laisku salaami karaa buu leeyahy, sida reer galbeedka in madaxa laisu yaro fororiyo un kaas bay salaatu noqonaysaa buu leeyahy. ama se qabcada inaad kor u qaado, koofiyadda yare madaxa la saaro, wase iyagu isu salaamaan, inaad ama koofiyadda madaxa ka qaado ama aada madaxa hoos u dhigto. 1928 ba haddana qaanuun kala soo saaray oo sheegaya inay mamnuuc tahay in la dhigo shareecada islaamiga ah. isla markaasi wuxuu soo saaray qaanuun sheegaya inay mamnuuc tahay qur-aanka in la bartaa. wuxuu soo saaray inay mamnuuc tahay afka carbeed in lagu adiba. wuxuu soo saaray inay rag iyo dumarku dhaxal kaga siman yihiin. wuxuu soo saaray inay mamnuuc tahay nidaamka tacadud zawjaat, in ninku dhowr dumar u guursan karo. wuxuu soo saaray markaasi afka turkiga oo u qormi jiray xagga af carabiga, yani alfabetska xurufta u isticmaalaan xagga af carabiga ay ahaan jirtay, wuu mutirtiray oo wuxuu u bedelay xagga afka laatiiniga inay u socoto. wuxuu soo saaray qaanuun sheegaya maalinta jimce inay maalin shaqo tahay ee aan maalin jimco fasax aani jirin,
ee maalinta axaddu inay noqoto markaasi maalinta dadku ay fasaxayeen. turkiya waxaa ku dhacday markaasi 20 iyo dhowr sannadood buu mamnuuc ahaa qof turkiya in laga maqlo xaj baan tegaya. 20 iyo dhowr sannadood ayaa mamnuuc waxa ahaa qof muslima oo turkiya inay dhacdo inuu yidhaahdo xaj baan tegaya, aan cidina kasoo xaj tegin. wuxuu bilaabay in xataa la yidhaahdo aadaanku allahu akbar in lagu aadimaa ma banaana, taanri ula dur waa in la yidhahdo inta meesha la istaago, waa ilaahay baa weyn af turkiya. axad al-a'ima, imaam ka mida aimada turkigaan maalin la kulmay, markaasuu iga warramay qisada meesha ka jirtay. sheeku markaa ay sheegay aada u ariifa. wuxuu yidhi markii uu soo rogay in afka turkiga lagu tukado, salaada la gelaya halkii dadku ay ka akrinayeen alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin, afsoomaala lagu akrinaya, yani waxaa lagu akrinaya af turki, ilaahay baa weyn, waa inuu qofka bilaabo, yani tarjumadii suuradda waa inuu akriyaa, ee inuu iyada akriyaa waa mamnuuc. wuxuu yidhi masaajidkii ugu weynaa magaalada baa lasoo galay, dadkii baa safafkii salaadii isbaxay, dabeetana salaadii baa la xidhay. salaada markii la xidhay ayaa imaamkii de halkii laga sugayey takbiiratulixraamki inuu dadka maqashiyo allahu akbar inuu yidhaahdo, ayuu wuxuu yidhi buu yihi taanri ula dur ayuu ku xidhay buu yidhi. dadkii markay arkeen meeshan sida loo tukanayo, qofba marubu maradiisa qaato, labadiisa kabood ka qaato, waa iska baxeen. markuu salaamo naqsaday buu yidhi assalaamu calaykum ma jirto, gunaydin malaklarin buu yidhi inta xagga eegay, waa af turki, gunaydin malaklarin. weedhaa markuu yidhaho xagga eegay buu eegay, mise masaajidkaba xagga cidi kuma jirto, gunaydin malaklarin buu yidhi xagga kaloo eego, masaajidkaba cidi ma joogto. 20 iyo dhowr sannadood baan markaa turkiya masaajid jamaaca cidi isugu imanin, muddo ku dhadhow, oo marka ay noqotay ninka raba inuu salaad tukado dee inuu gurigiisa ku tukado. waxaa dhacay masaajidkii ugu weynaa ee waddanka ku yaalay wuxuu u bedelay matxaf, museum, akbar masjid waddanka ku yaalla ugu quruxda badnaa, waxaa loo bedelay matxaf, meel museum oo dadka ay wax ku daawadaan. waxaa laga mamnuucay markaasi in salaada lagu tukado, ilaa maantana waa ka mamnuuc. ilaa maantadan aynu joogno akbar masjid fi turkiya waa ka mamnuuc ilaa hadda in salaad lagu tukada. waa matxaf la dhigo madaxyada dadkii hore iyo turkidii hore iyayda caabudi jirtay iyo wax la nooca, taariikhdoodii la dhigo oo dadku markaasi ay u yimaadaan oo tasawirtaan oo laga baxo. waa meel museum oo tuuristku ay galaan. wuxuu isku dayay inuu culamada muslimiinta o dhan isugu yeedho ee turkida ahaa, dabeetana inay saxeexaan waxa uu sheegayo, ay dadka yidhaahdaan waa sax. markay diideenna madaxu ka guray, firdhadkoodii in yarbaa masar iyo meelaha u kala carartay, wixii kale markaasi wuu tumay. haddii qalbi alcaalami alislaami meeshii islaamka looga talinayo marka sidaa loo galay, maxaad u malaynaysaa dhulkii kale inay sidee yihiin? waxaa dhacay masalan fi sabciinaat, 70-nadii, sida sheekh cabdalla cazaam uu tilmaamayo, 70-nadii baa waxaa dhacday sheekha la yidhahdo amin siraaj, waa masjidka masjid alfatix, maxamed alfatix ninkii istanbul furtay masjidka loogu magac daray weyn ee ku yaalla magaalada istanbul. sheekha imaamka ka ah amase tuki mudariska ka ah ayaa 70-naadkii waxay muslimiintu jeclaysteen maray rabeen in ay islaamkii lagu soo celiyo xukumka, oo professor najmudiin arbakan ninka la yidhaahdo xisbigiisii markuu meesha u sharaxnaa, ayaa waxaa la yidhi ninkan imaamka muslimiinta o dhan meesha wax ugu dhiga, dadka muslimiinta aday codka ku siinayaan aad islaamka dadka ku xukuntida ku soo celi jida sharax. markaasuu diiday, ma sharaxaya buu yidhi anigu ma gelayo baabkan. markii dambuu ooyey say dadkii ugu qasbayeen. waxaa la isweydiiyey markaa war imaamkii muslimiinta ninkii sheekha dadka wuxuu dhigay maxaa ka oohiyey? sheekuu markaa ka sheekeeyey, wuxuu yihi waryaadhahe iska kay daaye oo ii daaya wixii aabbahay uu iigu talagalay. anigoo yar buu yidhi baa aabbahay qur-aanka i baray oo i qaybsiiyey si aan dadka u baro.
laakiin buu yidhi aabbahay dhibtii ka qabsatay maalintuu qur-aanka ay barayay, waa nin weyn isagu, marka waa da-dii markuu yaryaray waxaan soo gaadhay wada mamnuuca. aabbahay buu yidhi maalintuu qur-aanka ay barayey isagoo guriga iyaga igu dhigo buu yidhi ayuu iga qarin jiray hooyada iyo walaaladay. habeenkii markaanu seexana buu yidhi habeenka badtago ayuu aabbahay saqda dhexe toosin jiray buu yidhi. dabeetana intuu ila duso ayuu qol gaara igu xidhan jiray, qolkaasuu igu dhigi jiray inta reerku hurdo. wuxuu aabbahay sidaa igu dhigayay buu yidhi inaan dadka ana qur-aanka baro, aanu qur-aankaasi hallaabin. saqda dhexe waxaa aabbahay ii toosinayay ee hooyada iyo walaalada layga qarinayay inaan isku dayo inaan dadka qur-aanka bara aniguna oo aanan muhiimadaasi ka tegin. taas baa aabbahay ii tarengareeyey ama se uu ii tababaray ee ii dhaafa buu lahaataa. waxaynu garan karnaa sida cilmaaninimadu ay ugu talax tagtay wadankaasi. fi sabciinaat masalan professor najmudiin arbakan ninka la yidhaahdo iyo xisbigiisa markii maxkamadda la taagayey ee inqilaabka caskarigii intuu dhacay la qabqabtay ee maxkamadda la taagay, yani waxaa la arkay inay turkiya islaam kusoo noqonayso. naata ka qayb gashay baa la yidhahdaa caawintii in inqilaabkaasi dhaco. nimankii odhan jiray dimuqraadiyadaanu wadnaa, tacadud alxisaab baanu rabnaa, kan baanu rabnaa, ayaa markay muuqatay in islaam uu soo noqonayo ka qayb galeen. dabeetana waxaa dhacay inqilaab. inqilaabku markuu dhacay dib loo qabsaday ayaa professor najmudiin arbakan ninka la yidhahdaa maxkamad la taagay. maxaa lagu maxkamadaynaya? adigoo siyaasiya baa la yidhi baa dadka hortiisa ku tukatay. maxkamadda koowaad waxay tahay yani mabda-ii cilmaaninimada ee ahaa in diinta iyo la kala saaro dawladda baad ka hortimid. idan waxaad ku tukatay amaama annaas baad salaad ku tukatay iyadoo aan kuu banaanayn inaad ku tukato. asheekh cabdalla cazaam raximah llah ayaa wuxuu leeyay 69 buu yidhi isagoo kamida markaa shabaabkii la dagaalamayey yahuudda ayaa waxa dhacay buu yidhi waxaa noo yimi nin suxufiya oo muslima oo macruufa oo maxamed shawkat la yidhaahdo. waktigaasina buu yidhi waxaa tegayey wadanka sacuudiga sulayman dimriyan, waa ninka imika madaxweynaha ka ah wadanka turkiga, oo wasiira ayaa sacuudiga tegayey si uu mucaahada iqtisaadiya ula soo xidho. dabeetana demriyal wuxuu rabay, ama ninka sulayman demri la yidhaahdaa, inuu cimraysto, laakiin bisharti buu yidhi waa inaan wax kamara sita iyo wax suxufiya iyo waxba toona inaanay meesha imanin markaan cimraysanayo. ninka suxufiga markaa wuxuu leeyahay wax lacag baan bixinayaa cidda soo sheegta nin siyaasiya oo turkiya oo xaj maradii xidhan suurada ahun keena, yani ixraam mara ah xidhay suuradun keena ama kacbo ku wareegaya ama meel lamida jooga. waxaan leenahay caalam alislaami turkiya lama gumaysanin ee waxaa loo bedelay nidaamkeedii nidaamka. intii kalena waa la gumaystay. inta kale waxay u bixiyeen tarikatu rajulin mariid, waxay dhahaan dhaxalkii ninka bukay. caalam alislaami dee markaa cusmaaniyiinta xukumi jirtay, marka isagii dawladiisi caynkan loo galay, intii kalena waxay dhahaan waa dhaxalkii dadka bukay oo yurubaa qaybsatay, ninba inbuu gumaysto u kaxaysta. mustafa kamal ataturk waa iska dhintay, inkastoo si fool xunle uu u dhintay. waxaa turkiya dib loo ogolaaday in salaad si caadiya loo tukado 1950kii. 1950kii waxaa soo baxay nin la yidhaahdo cadnaan mandris oo ra-iisul wasaare ka noqday wadankaas. xisbi alcadaala xisbi la yidhahdo hogaamin jiray. dabeetana isagoo loolankii doorashooyinkii iyo waxaasi ku jira oo dayaarad fuushan ayaa dayaaradii la halligan. dayaaradii markay halligmaysay oo cirka la marayo ayuu ninkii rubaanka ahaa ama krugii dayaaradda watay ayaa waxay dhaheen dayaaradda tani way dhacaysaa, waa in la gashadaa qamsaan najaat, baaladan yani qalabkan laysku ilaaliyo ee kuraasta hoostooda ku jiriyo waxa kan qof waliba waa inu wixiisa xidhaa, waa in loo diyaar garooba yani dhicitaan. cadnaan madras waxaa laga sheegaa wuxuu yihi markaas baan nadray, markaasaa waxaan ku nadray buu yihi ilaahayow haddaad maanta shilkaasi iga badbaadiso oo turkiya mar uun madaxnimadeedu gacantayda ay soo gasho
inaan islaam ku celiyo. dayaaradii way halaagantay, waxa laaliya wixii ku jiray in xabadi kama baxsanin. ilaahay si cadnaan madrasu nabadgeliyey, keligii baa ka nabadgalay oo ilaahay subxaana watacaala si khaariqa baa loo nabadgeliyey. cadnaan madraso qura baa nabadgalay, in laaliya intii kale dayaaradda saaraydna way dhimatay. markuu nabadgalaybu wuxuu isku dayey inuu ballankiisii ilaahay ula qaaday uu fuliyo. wuxuu ballan qaaday markaas, waa taqaanin axzaabtu markay saraxayso barnaamijkeeda waxqabad bay soo bandhigtaa. bal u fiirso dadkan halka islaamnimada laga gaadhsiiye, ninkani barnaamijka waxqabada uu soo bandhigayo. wuxuu leeyahay dadkii, haddaan meesha qabsado waxaan ogolaan doonaa in af carabiga lagu addimo. haddaan meesha qabsado buu leeyahy waxaan ogolaan doonaa in malcaamadihii la furo, qur-aanka la dhigto, dugsi qur-aanna in la furo. haddaan meesha qabsado buu leeyahy masaajidkii weynaa ee sofiya la odhan jiray ee matxafka laga dhigay masjid baan dib ugu celinaya. nuqaadka caynkaasiyabaa ahaa barnaamijkiisa siyaasiga ninka kani watay. maca dalik shacabku siday ugu heelanaayeen qof mar uun islaam wax la yidhaahdo u sheega, isagay ugu rideen. dabeetana wuu ku guulay, wuxuu noqday ra-iisul wasaarihii wadanka. ramadaantii koowaad markaasi ayuu dadka wuxuu ugu bushaareeyey oo u ogolaaday ramadaanta tani markay bilaabanto in suuqyada adimo iyadoo lagu adimayo afka carbeed. ramadaan markii bishii la arkay baa aadaankii bilaabmay. markaa allahu akbar allahu akbar. waxaa la yidhahdaa reer istanbul maalintaasi siday u ilmeeyeen farxad daraaddeed, faraxoodaasi wuxuu la mid ahaa kii maalintii la furtay istanbul. maalintii la furtay siday u farxayeen oo kale bay u faraxsanaayeen baa la yidhahdaa. reer galbeed laakiin qadiyadda raalli aad bay u dhibtay wadankay cilmaaninimada bareen. ay rabeen inuu caalamulislaami horyaal u ahaado, ay rabeen inuu noqdo tusaale lagu daydo sida uu u dhaqmay inay kuwa kalena u dhaqmaan. inuu maanta haddana dib islaamnimo ugu noqdaa aad bay u dhibtay. markiiba inqilaab baa la daberay. inqilaabkii markii la daberayna ninkii waa la qabtay. cadnaan mandres maxkamad baa la taagay lagu eedeynayo alkhiyaana alcudma wa mukhaalafatu dastuur, iyadoo lagu eedeynayo inuu galay alkhiyaana alcudma, khiyaano weyn inuu wadanka u geystay, iyo dastuurkii ummadda inuu khilaafay. dabeetana waxaa lagu qaaday dil, waayo wuxuu ka hor yimi aragtidii reer galbeed iyo dhankay u socotay. ilaa maalintaa ilaa maanta lama aqbalin marnaba caalamulislaami inuu ka soo bidhiiqo meel la odhan karo dadkaasi si xor ah bay rabaan inay islaamkooda u tabaqaan oo isugu xukumaan. mar kastaba reer galbeed wuxuu xoojinayey cidda rabta inaan wax lagu xukumin islaamka, cidda rabta inaan kitaabka iyo sunnadu soo noqonin. dagaalka nooca kani ma aha dagaal meel qura ku kooban, waa caalamulislaami dhammaantii oo dhan baan odhan karaa. waxaa kaaga filan mustashaaru bayt alabyad, guriga cad ee maraykan ninkii la taliya qaanuuniga ka ahaan jiray, britianiski ayaa la odhan jiray. britianiski baa hadlay, waa washington post baa qoraysa. markaasu wuxuu leeyahy idaarada maraykan waxa ay dareemaysaa qalaq aada baalig u ah buu leeyahy, werwer weyn bay dareemaysaa dhaqdhaqaaqa islaamiga ee soo tiro batay caalamka ku faafaya daraaddeed. sababtuna waxay tahay buu leeyahy lianna amriika xarisa calaa cadam istimaaxi lilislaam an yalcaba dawran mucasiran fi siyaasa duwaliya. afghanistan markay dagaaladu ka soconayeen jihaadku ay waxay isku dayeen bal in awdaacda tan la ogaado. laba madaxweyne uu iska daba diray maraykanku. carter baa tegey, kadib markuu kasoo noqdayba haddana nixon loo diray. nixon baa ka daba tegey, awdaacdu soo eegay. nixon baa soo noqday, wuxuu qabtay markaasi public press buu qabtay. wariyayaashii su-aalay weydiinayaan. markaas waxaa la weydiinaya mushkilaadka caalamka ka jira, ka waran baa laleeyahy problemka meel heblaayo ka jira. it's not a problem buu ugu jawaabaa. kii la weydiiyaba taasi mushkilad maaha buu yidhahdaa. markii dambe waxaa la weydiiyey su-aal odhanaysa haddaba waa maxay mushkiladaad adigu sawiraysa.
وحيري مشكلة وقوين ايشرتا وحويا إسلام كسر نقضى برية فوق مشكلة وقوين إن أكبر عقبة بولي تواجهنا هي الإسلام لبا كده وقوين ما أنت أمريكا هرسع على بولي هو الإسلام وحانا واجب بولي إنه لو نخ خلافات في نبي الراسين كي نود حيي شيء نوغو هرسقنا زحف يكن أما الضغط كان إسلامي يصوص على شيء نوغو هرسقنا وحينا كغفلا ما أنت أي عالم كوحة كسارة وزير خارجية طليانية يقول ناس مركا وزير خارجية هي تقال ويجي ورنسا وروارته بعض هو تنقل سكتي ناس محايس كوهيسا حان ناس اللي قفليا هدي وحي لقو هرجيني يتكسي محال لقو فليا ذا ليدي الناس وحكوتي هذا واحد نوهيسا مسلمين ناس يعني الدور كلي ما انت عيار السواء إنه يكون تصدق المسلمين فيه تيجي فرانسيس الكويت أي واحد كان له وزير الخارجية فرانسيس وهره عهد جديد كان في وزير الخارجية كان جون فانسو الله يدعو مركو هذا يوصل له واحد شركبوي هشي سرية oo u dhaxeeya duwalka reer galbeed iyo Serbiya oo ku saabsan in Serbiya wado in la dabar gooyo dadka Bosniyiinta ee muslimka iyadoo waliba caawimada ay bixinayso buleeyahay umam al-mutaxida reer galbeedka duwalkooduna waa inay la yimaadaan qura al-ihtijaaj wa tanjiid wa tahdiid bitadakhul inay kulba goodiyaan oo ilaahay waa soo faragelinayna haddii ka daynin ama waxbaanu ka qabanayna iyaguna intaa waa inaanay dhaafin buu heshiisa waa wasiir khaarijiye فرانسيس waxaan jiray ayaa wuxuu leeyahay heshiis baa jira reer galbeed iyo Serbiya ka dhaxeeya oo sheegaya in Serbiyanku cidib tiraan dadka muslimiinta ee Bosnia ku nool isla markaasina United Nations-kuna uu ku kaalmeeyo reer galbeedkuna inay taagnaadaan in masalada oranaysa hadaan la joojin waxa si wasoo faragelinayna waxa tusaale kale idinku filan Schwarz ninka la yiraahdo oo nin Jarmala ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ee masiixiga Jarmal CDU xisbiga xukuumadda wadanka Germany kamida cudwi baarlamaanka wadanka Jarmal ka tirsan ayaa wuxuu ka hadlay maqaal wuxuu tagay Serbiya iyo meesha muslimiinta Bosnia lagu xaqo oo soo noqday dabeetana maqaal qoray maqaalku jariidada ku qoray wuxuu bixiyay ذلك كله رأيته بعيني وحن شيء يودني شيئا كسار كبالة إلى عنوانك مقال ومحي وحويشي سكسار وحولي وحن الكوين ير وعن صدح بلوتشرين ولا بدأ دقود يستنك الله شري إن الدلو قفك وابا الشيء لكن وحولي وين ير صدح بلوتشرين ومسلمة والله شري اللي بدأ دقود يستنك وانا الكوين waxaan kaybuuri hooyooyinka uurka leh oo beerkooda inta la dilaaciyo waxa uurkooda ku jira laga soo saarayo waxaan arkay buu leeyahay odayaal rag iyo dad nooc walba leh oo sida xoolaha loo gowracay buu leeyahay min alwariid ila alwariid dhegta ilaa dhegta kale inta la isu gaarsiiyey gowrac bira waa nin kristaan oo reer galbeed nin kale waxaan baan sheegay ku soo arkay waxaan arkay buu leeyahay dumar badan oo lagu xadgudbay oo aanay ka hadhin umulkoodii ama inay dhalaan 7 wax ka yar waxaan arkay buu leeyahay suwar aad u tiro badan loo fadiica oo aanu soo bandhigin buu leeyahay TV-ga reer galbeed mar laba iyo ka baritoona وأتحدى إن كانت عند هؤلاء الجرأة والشجاعة لبطيها أبو لي وحنا كجودين يا أبو لي عرّ هدا ركتهين الرجل نبي إذا كنت تقول لي تيجي إنها كصباحان وحن صار كي واقع كثيرة وحن أركيبوا لي صورة أنا أول جاي إلا بيني حد بيجاد إن لا يرى ويل يربي قفتان سيربي مركز الدبين مركز الدبين أيه هي اللي تكيسي أبيه وقوقوين ويرى قصة قعن وأبيه انت اللي الدبي سجع أيه أبيه اللي لا يقصب قعن
dabeetana odaygina markaasee la dilo laga takhalus. caalamka maanta jooga kaas baa ka jirta, caalamka maanta jooga kaas baa ka jirta. qoladii xuquuqul bini aadamka u doodaysana weli waa maqanta. islaamka iyo dhibaatooyinka lagu hayo kashmiir maanta kasanin dhaktara baa warramaya. wuxuu leeyahy dadka muslimiinta kashmiir degan marka la qabto maxaabiistooda ama dadkan suuqa jooga lasoo ururiyo baanarkay buu leeya la geynaya mustashfiyaadka dhakhtarada meel baa lagu kaydinaya waxaa loo haystaa buu leeya human spare parts bay dhakhtarka kii keli u baahda kanunbaa looga soo saaraya, ka wadna u baahda halkaa laga soo saaraya, ka il u baahda halkaa laga soo saaraya. waa human spare part baa loo hayaa buu leeya. inta meel lagu ururiyey ayay u yihiin markaasi dayactir, qalabka dayactirka ee lagu dayactirayo dadkan buka ee dhakhtarada ku jira. waxaad garan kartaa ummadaasi meesha la gaadhsiiyey. suunkii sanadkii hore 93 ayaan tv-ga CNN ka furay barnaamij ay kaga waramaan wariyaasha lagu doodsiiyo. markaasaa wariyaha international correspondence of daily iyo newspaper la yidhahdo bakistaaniga ah nayar shariif ninka la yidhahdo wareysanayay. markaasu wuxuu leeyahay ninkani waa CNN ka soo daynaya former chief of French intelligence buu leeyahay ninkii ahaa, ninkii hogaamin jiray ciidanka sirdoonka ama masalan CIA oo kale Faransiiska ninkii hogaamiya ayaa buug qoray buu yidhi. buugga wuxuu ku qoray buu leeyahay fikradda kaga warramaya dagaalkii koowaad iyo labaad ee adduunku wuu dhammaaday buu yidhi. waxaa kaloo dhammaaday buu yidhi dagaalkii saddexaad ee adduunka oo ahaa cold warkii ama dagaalkii qabooba alxarb albaarida. waxaa bilaabmay buu isagu markaasi leeyahay dagaalkii afraad ee dunida. kaasina wuxuu inoo dhexeeyaa buu leeyahay innaga haddaynu reer galbeed nahay iyo dadka muslimiinta ah. sida daraaddeed marnaba waa inaynan ilaabin, inaynan losgaraynin ama si aan laynaga xoog badanin dagaalka kan. kaas waxaa laga yaabaa inaad tidhaahdo waa nimaan shaqaalo ahayn. suuradda tani waa John Major, waa warqadu qoray, saynkiisii baa ku yaalla. jaraa'idka caalamiga intooda badani way qoreen. suuradda tan John Major warqadan uu qorayo wuxuu u qorayaa Douglas Head, wuxuu u qorayaa wasiirulkhaarijiyihiisa. wasiirulkhaarijiyihiisa wuxuu kala hadlayaa qadiyadda uu kala hadlayo waxa kalifay baan odhan karaa inuu warqada tan qoro hadal ay jeedisay habartii ka horreysay isaga meesha ay jirtay. dumarku waxaad moodaa inay ka yara qalbi jilicsan yihiin ragga. Carter way jira adkaysan weyday waxaan Serbia laga wado dabeetana intay khudbad jeedisay waxay leedahay Yurub aad bay foolxumo ugu tahay inay waxa kale meesha ka sii socdaan. kaasuu wuxuu ka cabsaday maadaama islaantu ay in badan ra'iisul wasaare soo ahayd, maadaama xisbigooda conservative-ka ay magac ku dhex leedahay, inay dadka badhu dhegteeda hadalkeedu uu dhegtooda ku dhici karo. marka wasiirulkhaarijiyihiisiiba warqad u diraya. warqadda uu diraya muxuu ku qoraya? wuxuu leeyahay si fiican baan u ognahay in Giriiga iyo Raashenka iyo Bulgaariya ay hub iyo tababarba siiyaan Serbiyiinta. si fiican baan u ognahay buu leeyahay in Jarmalka iyo Austria iyo Slovenianka iyo Vaticanka boobka meeshu ka taliyo ay hub siiyaan iyo tababarba Croatianiska. waxaan kaloo ognahay buu leeyahay intaasoo dhan anagoo og sinaba laakiin uma banaana buu leeyahay inay muslimku wax helaan. sinaba uma banaana boosniyiinta muslimka ahi inay hub heli karto. wuxuu leeyahay macquul ma aha inaynu aqbalno wadnaha Yurub inay ka dhalato dowlad islaam oo abtirsata. hadalkiisa isagoo sii wata buu leeyahay gefkaan mar hore gallay inaan dib u gallo maaha buu leeyahay. waxaan gaf gallay buu yidhi
muslimiinta markaanu u ogolaanay inay afghanistan ka dagaalamaan oo loo dagaal tago ruushia kala jebiyo markaas baanu gafgallay buu leeyay sida daraaddeed inaan tanna tiyo kale ka ogolaano muslimiintu isa soo urursado u ka dagaalamaa taasi marnaba ma dhici karta buu leeyay jaaliyadaha muslimka ku nool buu leeyay yurub waa inaan saarnaa riqaaba ama ilaalin xoogan waa inaan saarnaa inagoo eegayna islaamkoodiiyo siduu u faafayo ma banaana buu yidhi inuu dunida ka jiro magaca loo yaqaano bosnia ama albosnik iyo herse kan wada socda inay ka jiraan meesha ma banaana buu leeyay dadka muslimiinta meeshaa jooga buu leeyay waxa la laayo mooyaane waxa kale waa in tahjiir lagu sameeya yurubta kale iyo meelaha waa in qaxoonti laga siiya laakiin meesha tan waa inaan isku urursan oo aanay noqonin dowlad islaamiya yurub buu leeyay waxay ku degantay kristankeeda iyo qiyamka uu siinayo christianitigu akhlaaqdeedana way ku ilaashanaysaa kaa muslimka yurubna waxaan u sheegayaa buu leeyay inaanay awoodi karin inay cid kala caawiyaan waxaan kale u sheegayaa buu yidhi muslimiinta yurub inaanay u suurtagal ahayn dowladaha yurub inay cinaadaan oo waxay doonayaan dowlaadka yurub inay ka hortagaan waa warqad official letter ah oo uu qorayo ra-iisul wasaare waddan ka mida yurub xukuma oo u dirayo wasiirul khaarijiyihiisii waa official letter signkiisii wadatiyo signaturkiisiiba internationalina loo faafiyey kadib markii ay xadeen qolyo kaloo ay hayaan waxaan uga jeedaa gaal hore waxay ugu tashatay inay dadka muslimiinta ah islaamka ka fogeeyaan waxay ugu tashadeen inaan dowlad islaamiya jirin kuwa meesha joogaane ay ku reebeenna waa qaara iyagu wataan oo isla ogyihin ma dhaamaan nimankan maryaa cadcadee waaweyn sitaa wada taqaanin waa la noocun waxaan hubaa in badan oo maanta carabta ka talisa inuu siyaad barre ka fiicna laakiin siyaad barre dhaqaalo badan baanu haysan oo dadka ku kala seexseexiyey in badanoo maanta magaca kule dunida carabeed baa ka liidato aswa-u saw-a ka ceeb xun wuxuu sameeyey siyaad barre soomaalida waxa laga yaaba inay siyaad barre ka wada cadhaysanta laakiin caalamulislaami waxa ka dhaca kama dhicin baan odhan karaa waddanka soomaaliya dadka noocaas iyo maanta muslim ka taliya masalan waxaa laga yaabaa inaad tidhaahdaan qaar baa diidan reer galbeed kadaafiga maqashaan ay kalbil mascuur iyagu u bixiyeen ayaa wuxuu tasriix buu bixinaya uu leeyahy muslimiinta buu yihi bosnia waa walaalahayo serbiyana buu yihi waa asxaabtayo wamaa fi daaci lilmashaakil buu yidhi markaa wax mashkilad keensadaana markaa ma jiraan niman aanu saaxiibani iyo qol aanu walaalanahay unbaa jira dilay wax mashkiladoo laisku mashquuliyaa ma jirto iyadoo ogtiin serbiya inay geeska afraad ee yurub leedahay ee ugu ballaadhan ayaa sadaamka dadka badhay u barooranayaan leeyahay sadaam baa dunida isugu tagtay weli serbiya waa ninka qura betroolka siiya buu ahaa ilaa haddana ay reer galbeed u ogolyiin inuu siiyo caalamulislaami waxaan odhan karaa waa loo tashaday waxaanay ku talagaleen reer galbeed inuu sii baabo aan waxba ka soo noqonin laakiin tooda miya waxaanoo taariikha waxaan u akriyey inaan idin xasuusiyo caalamka waxa ka jira in yaru laakiin waxaan rajaynayaa intaa idinku haysaan inay iga badan tahay laakiin waa tusaalayaal cayinaat aan farta jeclaa inaan idinku tilmaamo ilaahayna qur-aanka hore ugu tilmaamo wuxuu leeyahy maa yawadu aladiina kafaruu min ahli lkitaabi wala lmushrikiin an yunazala calaykum min khayri min rabbikum haddii dadku kalsooniday muslimkii hore qur-aanka ku qabeen hadday ku qabaan aayadda qur-aana intaan idin akhriyaabaan ka maarmi lahaa waxa aan sheegayay oo dhan waayo aayadda qur-aani waa nas sariixa oo rabbulcaalamiin uu leeyahy ilaaha dunida ka talinaya uu leeyahy alle subxaana watacaala muxuu qur-aanku leeyahy maa yawadu aladiina kafaruu min ahli lkitaab ilaahay wuxuu leeyahy ma jecla kuwa gaaloobay ee ahlu kitaabka iyo mushrikiinta ka midi an yunazala calaykum min khayrin min rabbikum xagga alle in khayr idinka soo dego ma jecla dhammaanba ina khayr xataa heshaan ma jecla baa ilahay leeyahy subxaana watacaala wadda طaa'ifatu min ahli lkitaab law yudiluunakum baa ilahay koox ka mid a ahlu kitaabka waxay doonaysaa baa ilahay leeyahy lumitaankiinu
inaydan weligiin dad jira noqonin oo magac iyo muuqaal leh ayay jecel yihiin baa ilahay leeyahy subxaana watacaala. sidaa ma ahaanaysa haddii taariikhdii maadiga ahayd ay taa noqotay oo caalamulislaami la gumaystay oo dawladdiisii ugu weyneyd la baabi'iyey oo intii ka soo hadhay iyaga gacanta hoos dhigato oo shacabkiina kuwii ay kaga yimaadeen markay nafta isugu geeyeen kii ku soo diray ay naf bideen, yacni kuwii kuwa ka mas-uulka habaynu usoo cararo naf bidnay markaynu ka yaabnay kuwii meeshii joogay. caalamulislaami markuu halkaa marayo mustaqbalku haddaba waa sidee? dadka badh bay u muuqataa inay quustaan markay maqlaan xaggan muslimiin baa lagu laayay, xaggan waa lagu laayay, xaggaa waa lagu laynaya, koodii waxba kuma haystaan, xaggan qaxoontay ka yihin, caalamkao dhan dhibaata ka jirta. maquus baa markaa ama dadka badh baa isweydiiya ilaahay subxaanahu watacaala muxuu dadka wax uga qaban waaye gaaladan u leeyin waaye? awalan waxaan leeyahay nolosha saa ku socon maysa, wax badan baa isbedelaya. ilahay qur-aankiisa wuxuu ku leeyahy alam tara kayfa daraba allahu matala kalimatan طayiba kashajaratin طayiba asluha saabit wa farcuha fi الsama tu'ti ukulaha biidni rabbiha wayadrib allahu lamhaala linnaasi lacalahum yatadakaruun. ilahay wuxuu leeyahy subxaanahu watacaala miyaad arkeen ilaahay tusaalahaasuu uga yeelay? tusaale ayaa alla subxaana watacaala wuxuu ka yeelay kelimada wanaagsan, kelimati tawxiid. waxa tusaale u ah baa ilaahay leeyahy sida geedka fiican ee jiridiisuna dhulka ku aasan tahay, furuucdiisa iyo aqsaantiisu laamihiisuna ay cirka ku ganan yihiin, ee ilaahay subxaana watacaala idankii ku bixisa midhaheeda sanad walba, taasoo kale bay la mid tahay baa alla leeyahy kelimati tawxiid. markaasaa ilahay wuxuu leeyahy wayadribu allahu lamhaala linnaasi lacalahum yatadakaruun. ilaahay tusaalayaal buu dadka u yeelaya bal inay waantoobaan darteed. awalan waxaan leenahay mu'aamaraadka loo dhigay islaamka haddii ay jirto diin loo dhigi lahaa ama mabda' loo dhigi lahaa, waxaa hubaal ah inaan dunida warqad lagaga soo gaadhin. mabda' ama diin mu'aamaro intaa leeg loo dhiga hadday caalamka ka jiri lahayd oo aan ahayn islaam, waxaa hubantiya in waa hore laga takhallusi lahaa oo aan waxba ka jirin. laakiin xaqu saa kuma baaboo. ilaahay baa wuxuu leeyay faama azabadu fayadhabu jufaa waama maa yanfacu annaas fayamkusu fi lard kadalika yadribu allahu lamhaal. ilaahay wuxuu leeyay xoorku ama sedaas xoorku waa baaba'daa, markiiba waa tagtaa, laakiin waxaa hadha baa ilaahay leeyay subxaana watacaala, waxa dadka anfacaya isagu waa hadhaa. kadalika yadribu allahu alamhaal. saasaa ilaahay subxaana watacaala tusaalayaal idinku yeelayaa baa alla leeyahy subxaana watacaala. waxaan leenahay marka mustaqbalka islaamkaas kale mubasharaad badan baanu haynaa. mubasharaadkaasi kuwa waaqaca nololeed iyo taariikheed laga soo dhimbil qaadanayo way leeyihin, kuwa nusuusta qur-aanka iyo sunnada nebigu calayhi salaatu wasalaam sheegayaan labadabana way leeyihin. iyadoo sidaa muslimka loo galay ayaa maanta ixsaa'iyaadka caalamku haddana waxay leeyihin islaamka sidaa loo galay ayaa waxay leeyihin the most fast growing religion in the world is Islam. diinta ugu dhaqsahaya tirada badan lee dunida ku faafaysaa bay leeyihin haddana waa islaam. ixsaa'iyaadka caalamiga waxay leeyihin iyadoo islaamka sidaa loo galay, diinta ugu tirada badan leh ama dadka ugu badan ee diin qaata iyo faafitaanka ugu badan ee diineed waxa sameeya bay leeyihin islaamka. waaxid ka mida gaalada wuxuu leeyahay buugga buu yidhi dunida ugu daabacaada badan leh la daabacaa waa bibaleka buu yidhi. buugga ugu tirada badan leh ee dunida ay daabacdaa waa bibaleka, laakiin buu yidhi buugga ugu akhriska badan leh dunida yaallaa buu yidhi waa kitaabka qur-aanka ah. waxaa tusaale kuugu filan faafitaanka islaamku uu ku faafayo masalan dhul aanu hore u gaadhin, yurub uu ku faafayo, bale islaamka ay islaamayaan
culamadii reer galbeedka ugu waaweynaa qaybo ka midi, weliba ahlil abxaad kuwa ah culamada waxbaadhe ee waaweyn ee researcheriska maanta yurub iyo maraykan degan qaybo ka midi ay maanta si cad oo muuqata ay u islaamayaan. waxaa kugu daliila faafitaanku islaam ku faafayo masalan maanta north america oo aada moodo dadkii madoobaa inay si xoogan diintoodii dib ugu noqonayaan. waxa kugu daliilo aad ku garan kartaa bay leeyihin islaamku maanta yurub si ugu faafayo. fii baris waxdaha, magaalada baris la yidhahdo keliya waxaa degan 112,000 oo gabdhood oo muslimo faransiisa. waa baris oo keliya dumarka faransiiska u dhashay ee diinta islaamigaa qaatay. magaalada keliya waxaa degan 112,000 oo gabdhood oo muslima. waxay taasi cadaynaysaa bay leeyihin sida uu faafayo islaamka. waxay cadaynaysa bay leeyihin islaamka iyo siduu u faafayo indicaafi alxarakaat alislaamiya, nashaadaadka islaamiga ee dib u soo noqonaya oo ah bay leeyihin dadkii muslimka hore u ahaan jiray oo iltijaamkoodu intii hore ka badanaya. waxa muuqata bay leeyihin caalam alislaami dadka maanta u soo noqonaya inay diinta haysta والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. إلهي wuxuu leeyahay kuwa gaalooday xoolahooday ku bixinayaan inay ilaahay jidkiisa ku awdaan. waa baxsan doonaan buu ilaahay leeyahay, laakiin waxay ku noqon doontaa xasro, iyagunbay murugo ku noqon doontaa. akhiiranna waa laga guulaysan doonaa. ma jirtaa wax marka hore cadaynaya in islaamka khilaafadiisu markay dintay kadib inay soo noqon doonto? مثلا حديث الصحيح إمام أحمد يدارني أو يرميان عبد الله بن عمرو بن العاص صحابي الله يرحمه أي سؤال ويدي وحل يري أي المدينتين تفتح أولا القسطنطينية أم روميا؟ وصحابي saxaabigu waa cahdigii nabiga raggii soo gaadhay nabiga la dagaal galay ama la noolaa ama si arkay. saxaabiga kan su-aala bay weydiiyeen taabiciintii ka dambaysa, waxay leeyihin adigaa ilaahay rasuulkiisii soo gaadhay labada magaalo keebaanu horfuranayna? labada magaalo la sheegaya ma garanaysaa? waa magaalada iminka magaca cusub le istanbul la yidhaahdo, waagii hore magaca kan lama odhan jirin, iyo istanbul ama islambulna waa la yidhahdo. yani abturka waxay ku tahay waa magaaladii muslimiinta markay qabsadeen muslimiinta kadib baa loo bixiyey. iyo rumya waa caasimada talyaaniga roma. saxaabiga waxaa la leeyahay labadaa magaalo iyomaanu horfuranayna, muslimiintu iyomay hor qabsanayaan istanbul iyo roma. dabeetana cabdillaahi ibni camr ibnu caas sanduuquu lahaa buu u yeedho yidhi ii keena sanduuqayga. wuu furay, kitaab buu ka soo saaray qoraal. dabeetana qoraalkii markuu ka soo saaray buu akriyo wuxuu yidhi annagoo nebiga calayhi salaatu wasalaam la joogna oo wax qorayna ayaa su-aashan ay weydiinaysaan la weydiiyey buu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam. waxaa lagu yidhi ayu lmadiinatayni tuftaxu awala? labada magaalo keebaanu horfuranaynaa ilaahay rasuulkiisiyo? ma qustantiniyaanu horfuranaynaa mise romya? keebaanu horfuranaynaa? nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu igu jawaabay buu yihi madiinatu hiraqla tuftaxu awala. magaalada hiraqal ayaa marka hore la furanaya, yacni alqustantiniya. nabigu ilaahay waxaa la horfuranayaa boqortooyadii romanisku magaalada ay ka talinaysay. labadan magaalo waxay kala ahaayeen, midi waxay ahayd halka diintooda looga talinayo oo fatikaanka ku yaalla de,
John Bolton waa ku degan yahay Vaticanka looga taliyo midna waxa looga talinayaa dawladii markaa ka talinaysay Yurubta Koonfureed iyo Afrikada Waqooyi iyo intan Shaam oo dhan ee Romanska loo jiray baa looga taliyaa oo Constantine marka waxa la weydiinaya nabiga kaleey salaatu wasalaam islaamku waa kana meel kasta uu gaari doonaaye ma magaalada dawladda laga xukumo baan hor furanayna mise diintooda laga xukumo maalintaasi Constantine nabiga la weydiinaya waxa uu dhignayd iyadoo maanta nin muslim uu yiraahdo Washington goorma la furanaya يعني وأكبر قوة في العالم تاجن مركز واحد رومانسك أكبر قوة في العالم ومركز سبيين دولة دي لله لما يصير بيرسيين كالوريش رأيه يقول حب بدين كان يقول دايين ديك قوة وقال مركز عالم لكن صحابته وحي نبي ويدينهم إيمان وهرفرين لبدا سلم قالوا نبي عليه الصلاة والسلام كسيلة مقالة مدحتو يدا الله هرفرانية هرقل كيسة أيها هرفرانية كان معناه وحويا لبدا مقالة إن لا فران دونا مسلمين فران دونا goorma la furtaa isweydiinta le marka nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhintay hijriyadu markay maraysay maxay 10 sanadood taariikhda hijriga markay 10 maraysay ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam la oofsaday oo geeriyooday saxaabadii iyo muslimiintii waxay isku dayeen ballankii bishaaradii nabigu uu bishaaro qaaday inay fuliyaan dabeetana dagaaladii waa soo socdeen waxaa la isku dayay in la furto dhowr iyo 10 saxaabi baa ku aasan maanta Istanbul oo furashadeedii isku dayay laakiin lama furanin goormay muslimiintu furteen waxa furtay الدولة العثمانية محمد الفاتح ninka loo bixiyay baa furtay goormuu furtay 850 markay hijriyadu maraysay يعني 840 sanadood kadib geeridii nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa la furtay magaaladu nabigu yiri waa furan doonta yani wacdigii nabigu wuxuu dhagoobay muddada inta la kadib sideed qarni iyo nus in ku dhow kadib baa la furtay waxaan leenahay waa xaqiiqo inta kalena la furan doona maadaama tuu nabigu maalintaasi tilmaamayo ahayd caasimatu akbar dawla fi العالم caasimadeedii ay ahayd oo la furtay waxa hubaala in bishaarada nabiga inteedii dambana xaqiiqoobayso oo muslimku akhiran ay furan doonaan Roma noocu doona furashadu ha noqoto markaas kaatib Francis ee dhawaan maqaal qoray markaas wuxuu yidhi sanata 2000 taariikhda markay 2000 gaadha buu yidhi Francis iyo Talyaanigu oo muslimiin bay noqon doonaan bulaha yani kaatibka Francis wuxuu ka waramaya siday dadku diinta u galayaan ama sida tii hore ay u sii dhimiikhayso iyo islaamku sidii u soo kabacayo markaas wuxuu leeyahay taariikhda markay 2000 marayso waxaan filayaa inay Faransiiska iyo Talyaanigu noqon doonaan dad muslimiin bashaayirta tilmaamaysa inay muslimiintu dib u soo noqon doontaan taasoo quraamaya xadiis kale imaam Ahmed uu warinayo saxiixa baa jira oo nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam takunu nubuwa fiikum ma shaa Allah an takun thumma yarfa'uha Allah idha sha'a an yarfa'aha wuxuu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam nebinimadu dhexdiina ay joogi doontaa intii alle uu doono subxaanahu watacaala inay joogto dabeetana ilaahay baa rafcinaya oo yani waa dhammaanaysa cahdi nubuwa nabigu markuu geeriyooday kadib nebi dambe ilaahay soo diraya ma jiro calayhi salaatu wasalaam ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه النبي يقول عليه الصلاة والسلام تأدب دد وحا أهان دون دبته خلافة على منهاج النبوة دولة كتها لسه مبدئين بالنمدة iyana waxay jiri doontaa buu nabigu leeyahay intii Allah uu doono inay jirto waa jirtay waa al-khilaafa ar-rashida tii Abi Bakr iyo Umar iyo raggaas ka talinayay in markay jirto buu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam way dubi doontaa iyana thumma takunu mulkan 'ada fatakunu ma shaa Allah an takun thumma yarfa'uhu Allah idha sha'a yarfa'uhu wa ku xigi doona buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam boqortooyadaas oo yani dhibaatooyinka qaarkood waa boqortooyinkii islaamiga ka dambeeyay aadan karta dawla umawiya oo dawla al-abbasiya oo dawla al-uthmaniya oo haluma jara boqortooyin noocaasiya ka dambeyn doono iyana islaamiya dabeetana waxay jiri doonaan baa nabigu calayhi salaatu wasalaam intii ilaahay uu doono inay jirto
dictatorship baa ku xigi doona buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam, kuwo madaxa idinka tuma oo dadka muslimiinta nafta isugu keena oo markaasi dariiqadii islaamiga ka weecda, kuwaas baa ku xigi doona buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam. waxaan leenahay casr alkhilaafa arashid, casru nubuwa waa dhammaaday, casri alkhilaafa araashida waa dhammaaday, casri almelk alcuduud waa dhammaaday. waxaynu ku jirnaa maxay? casriguu nabigu calayhi salaatu wasalaam ku tilmaamaya inay iman doonaan kuwo jabariyo dictatorship oo dadka muslimiinta madaxa ka tuma. nabigu calayhi salaatu wasalaam muxuu ku xigsiiyey? wuxuu haddana nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam, uma takunu khilaafa calaa minhaaji nubuwa. mar labaad bay soo noqonaysaa buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam, khilaafadii oo ku soconaysa calaa minhaaji nubuwa buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam, tii hore dib ugu noqonaysa. uma sakas, markuu halkaa mariyuu nabigu calayhi salaatu wasalaam aamusay, may sheegin markaasi wixii kasii dambeeyey. waxaan leenahay xadiidkani wuxuu tilmaamaya saddexdii dawre horeba inaynu soo maray, ama afartii kooxoodee horeba. cahdigii nebinimadu inuu dhammaaday, cahdigii khilaafada raashidkii inuu dhammaaday, cahdigii duwalkii boqortooyinka islaamiga hore inuu dhammaaday, cahdigii dictatorshipka inaynu markaasi iminka ku jirno. isna wuxuu u muuqdaa inuu dhammaantii gilgilan yahay ama se dab ka shidan iyo uu sii socdo. waxaan leenahay waxa ku xigi doona wuxuu yahay, waxaa ku xigi doona alkhilaafa araashida insha allah, inay caalam alislaami dib ugu soo noqoto khilaafa araashida calaa minhaaji nubuwa. wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiix oo kale ku leeyahy, layablugana hada alamru maa balaga alleyl wاnnahaar. diinta tani waxay gaadhi doontaa buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam, inta waa gaadho ee habeen iyo maalini ay gaadho. macnaheedu waxa weyaan dunidao dhan bay gaadhi doontaa. walaa yatruku allahu bayta madarin walaa wabar ila adkhalahu allahu hada diina bicizi caziiz aw bidulli daliil, cizan yucizu allahu bihi diin alislaam wadullan yudillu bihi lkufr. guri kasta way geli doontaa buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam diinta tani. laba midun bay ku geli doontaa, si sharaf le way ku geli doontaa ay dadkani diinta haystaan, ama iyagoo aan rumaysnayn laakiin xukuumadda islaami ay tahay oo iyagu dulliyiin oo islaamku uu xoogan yahay bay geli doontaa. waxaa jira axaadiis badan oo sheegaya ou nabigu calayhi salaatu wasalaam ku tilmaamayo inay muslimiintu saytaradu dib ugu soo noqon doonto. masalan waxaa ka mid a xadiidka ka warramaya qisada yuhuudda. nusuusta qur-aanka waxaa laga fahmi doonaa sida ilaahay qur-aankiisa uu ku tilmaamay yuhuudda. ilaahay wuxuu leeyahy lataclawunna fi lardi, ilahay wuxuu tilmaamaya inay dunida ku kibri doonaan maratayn, laba goor. marka hore waxaan idin diri doonaaba ilahay leey qaar idin baabiyo, ficlan way dhacday. marka dambena waa kibri doontaan ba ilahay leey subxaana watacaala. marka dambe intaanay kibrin ilahay wuxuu ku tilmaamaya waqatacnaahum umama, in la kala googoyn doono ay filqi doonaan. yuhuudda ma jirto malaa wadan dunida ku yaala ilaa jaaliyad yar iyo wuxuunbaa ka degan waa la kala filqiy. ilahay wuxuu tilmaamaya marka dambe aan idin halaagi doono, faida jaa wacdu alaakhirati ji'naa bikum lafiifa. waa idin soo ururinayaaba ilahay yihi ballanka dambena markaan idin qaadayo. maanta yuhuudda caalamka oo dhan meel baa loo wadaa, waa la ururinaya, meel kasta waa ka hijiroonayaan oo dhan baa loo sii wadaa. nabigu calayhi salaatu wasalaam markaasi wuxuu tilmaamaya, waa nusuus qur-aana kuwaan idin tilmaamaya. nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu xadiis saxiixa ku tilmaamaya, waxaa dhici doonta buu leeya inay muslimiintu iyo yuhuudda ay ku kulmi doonaan waadi urdun, oo qolina berigiisa ay joogto qolina galbeedkiisa, oo dabeetana la jebin doona buu nabigu leeya calayhi salaatu wasalaam yahuudda, oo kadibna uu odhan doona buu yidhi geedkay ku gabadaan iyo dhagaxay galaanba, xataa yaquula ashajar waalxajar buu nabigu leeyay, ilaa iyo geedka iyo dhaguxuba ay ka yidhaahdaan yaa muslim yaa cabdallah hada yahuudiyun waraa'i tacaala faqtulhu. ilaahay addoonkiisiiyow muslimow kaala yahuudi baa dabadayda ku jira adishiya. ilaa idkhirka mooyaane, shajaratu lgarqad mooyaane buu nabigu leeyay, geedka qarqadka la yidhahdo mooyaane inta kale. ficlan yahuudi waxay dhab u beertaa hadda geedka qarqadka la yidhaahdo. geedkuu nabigu leeya calayhi salaatu wasalaam ma sheegi doono, si dhaba bay u beeraan hadda, waa dhirta ugu badan ee laga beero maanta israel. laakiin nebigu ma odhan, waxaa la odhan doonaa yaa qowmiya alcarabiya tacaali waraai yani fulan faqtulhu. wuxuu nabigu leeya waa markay dhacdo yaa muslim yaa cabdallah, ka jabinaya maaha qoomiyada carbeed iyo nuwaxaasi, waa maray joogaan maxay
dad muslimi yaa muslim yaa cabdallah, dad qiray ilaahay addoonnimadiisa amase islaamnimo u hogaansanaaday. waxaan leenahay waa soo noqonayaa islaamku, taasi waa hubaal, muranno kuma jiro. islaamku wuu soo noqonaya, muranno kuma jiro inuu soo noqonayo. qoraa reer galbeed ah waa tuwaynabi, qoraaga la yidhaahdo, waa qoraa taarikhiyaan aada u macruuf ah, arnold tuwaynabi, waddanka ingiriis u dhashay, ayaa wuxuu galay lecture la yidhaahdo alislaam walmustaqbal, muxaadar u jeediyey. markaasu wuxuu ka warramaya alislaam walmustaqbal, islaamka iyo mustaqbalka nolosha adduunka. wuxuu weedhihiisa ka mid ah tarjumo carabiya haddaan ku akriyo: ina alislaama curda lian yasxu min jadiid wayatasalam qiyaadata alumam almustadcafa alkhaadica linufuud algarbiyi fi lwaqti alxaadir. islaamku wuxuu u ban yaallaa inuu baraarugo mar dambe buu yihi, oo uu qabto hogaanka ummadaha la gumaysto ee maanta hoos yimaada nufuudka duwalka reer galbeed. hadalkiisibuu sii wato, uma yaquul, markaasu wuxuu haddana yidhi: ina alislaama alyawma fii gafwa tawiila. dadka muslimiintii buu yihi maanta hurdo dheer bay ku jiraan buu leeyahy, tushbih gafwa ahli alkahf. hurdada ay ku jiraan buu leeyahy taarikhyahankani waxay u eg tahay noomadii ay seexdeen ahlu kahfka. waxaynu naqaanaa qiso qur-aanku soo arooriyey oo niman ahlu kahf la yidhaahdo, suuratulkahf ay ku soo aroortay, oo 300 sano hurday, intay qoom gumaysteen gaalaha ka carareen, god ka galay, seexday, ilaahay seexiyey, 200 sannadood hurday. markaasu wuxuu leeyahay gaalkan reer galbeed ee ingiriis, muslimiintu waxay u ban yaallin buu yidhi inay baraarugaan oo dunida ay dib u hogaamiyaan, oo umamka kan reer galbeedka hoos yimaada ay ka baxaan oo iyagu ay hogaamiyaan. laakiin buu leeyahay maanta waxay ku jiraan muslimku hurdo aada u dheer buu leeyahy, oo lamida buu leeyahy tii ay ku jireen ahlu kahfku. walakina duruuf alcaalamiya yumkin an tuuqiduhu buu yidhi, laakiin waxaan ka cabsi qabaa buu ninkani leeyahy dhibaatooyinka adduunka ka jira inay ninkan hurdo